صاحبي الكسور هذا حلقة دي لحد شكله إني ما نفاي شكله حين أقول شوكت إيده أي سهرة كبحث نسي ما نفاي أو يبلغ قاعد نسي يقول تماذو هل كان يقول لسه هو شيء ودن لا ذاي سهرة واحد توس وقاد أنت كدب مركي كتمي ما نفاي كورجي إنجنير أحمد لابد سيبه يسكب بدشي كورجي الشقالة سكدي كدكتي شد عديه بكر الرعدي يدو سانت بوبيسا سيدي قف قيلقيسا 3 daqiiqo socodah kadib waxay midigteeda ka aragtay sartii cadeed ee iridka jaranjarta yar ku lahayd qolka geeska midig irid banaanka ka xiga ayay indhaheedu u gudbeen waxay ka baqaysay in uu wali maqan yahay waqtigaas fiidka ah nasiib wanaag nalkii waa daaran yahay isagoo sariirta dusheeda wargeys jiif ku akhrinaya ayuu albaabka ka maqlay gargaraacid qof isku kalsoon uu yaabay yarana farxay waqtigaas cidna ma filayn garay saantaas fudud iyo gargaraacidaas tabacsani in ay dumar tahay abshir allo mid fiican ka dhig ayuu uurka iska yiri isaga oo shaar sariirta madaxeeda saarnaa gashanaya qoor iyo xiro waad u baahnayd mid ku maaweelisa inta hurdada laga gaarayo ayuu haddana albaabkii degdeg u furay isagoo wajigiisa bashaashnimo ku baraarujinaya markuu aqooday bay bashaashnimadii ka diday waa mid aan waxba ii faa'iideynayn ayuu uurka iska yiri afkana wuxuu ka odhi jow sahra si diiran ayuu u soo dhaweeyay jaale jimcada istiyaari bi hadal uga bilowday iyadoon salaantii ka qaadin codkeedana laga dhadhaysan karo in ay huruufayso hurdadii iyo caajiskii intay ka duuleen farxad kadis ahna la soo booday ayuu yiri warka isii hee meeshaad iga jirtid in uu qof nool iga jiro horaan u ogaaye adeer waxba hay masaajayne qoftii way ku diiday hadday idiidana laf dheer ijabi mayse warka ii faahfaahi buu ugu jawaabay isagoo istoqon diidsiinaya ereyga dambana dareenkiisa raad xumi ku reebay intay kursi qor ah miiska u soo dhigatay oo ay hortiisa soo fariisatay intay kursi qori ah oo miiska uu wax ku qoro horriil xagga sariirta u jiidatay kuna fariisatay xog warankii ugu bilowday isaguna chief buu ka soo booday intuu qun u soo fariistay ee sariirta salka saaray ayuu ka soo horjeestay iyadii waxay uga warantay wixii dhexmaray iyada iyo maanafay sidii ay uga kor wareegtay diidmadii ay ku gacan saydhay iyo balantii shirqoolka ahayd ee ugu dambeyntii u soo dhigtay hadda maxaa talaah ayuu weydiiyay isagoo niyad jabsan oo farxadii uu la soo booday wajigiisa ay ka tirtirantay si aan toos ahayn baan kuugu balaminayaa intay kugu qalagoynayso kadibna adigay ku jirtaa xeeladaha aad ku soo jiidanayso ayay ku tiri hadda jimcada maxaynu samayn doonaa taasa ugu muhiimsan ayuu weydiiyay waxaanu cashageynayaa jungal kayntii baashaalka ee magaalada ka baxsanayd cabdinaasirna waan la socodsiinayaa afarteena ayaa israacayna bravo aabbaha baa tilin jiray ayuu ugu jawaabay maanafay marna ma filayn cashadii shahra ku martiqaaday in niman kala qaybgali doonaan mana islahayn dibadda loogu safrayaa laakiinse hadda maxay samayn kartaa waa tanoo dabankii loo dhigay bay ku dhex jirtaa kooxdii u heshiisay bay dhex fadhidaa tala fara uguma jirto fatuurad cad oo kuusan bay dhex fadhidaa daaqad dhidban iyo nin dhaarsan baa dhinacyada ka xiga saaxiibteedii soo marti qaaday meel dheer kama jirtee horteeday fadhidaa waa taas marna cabdinaasir la faraka ciyaaraysa wiilkaas buuran ee bashaashka ah ee baabuurkana daadihinaya marna intay dib u soo jeesato dadka oo idil kaftanka u qaybinaysa kaftankeeduse maana uma dhadhamin una dhadhabi maayo marka ay soo eegtaba indhahay ku canaananaysaa sidii iyadoo leh waxba hay u qasna khaayimadii casiimadiisaanay ahayd maaho iyaduna ogaan bay isu dhaafsiinaysaa maana weli waxaa wejigeeda ku dambeeya raadkii carada dahsoon ee ay dareentay markii sahra intay daaqada ka furtay kursiga dambe ku soo dhaweysay iyaduna ka hore wiilka buuran dhinac fariisatay waxay ka fileenaysay in ay iyadu la fariisato daqiiqada kadib war cusub baa yimi ninbaa intuu baabuurkii soo galay si aan gabasho lahayn u soo dhinac fariistay isagoo cid macaan ku leh jow maana iyadoo yaaban bay salaantii ka qaaday ninku mid ku cusub ma aha waa wiilkii dhuubnaa ee habeenkii dhaweed ugu soo galay guriga sahra kadibna la isbaray isagu wuxuu la hadlayaa sidii dad aqoon wanaagsan isu leh iyaduse waxay uga qaloonaysaa sidii nin ay caawa isugu horeyso wuxuu la noqday cabsi weyn oo caawadaas la soo daristay qudheedu way iskula yaaban tahay cabsida noocaas ah jawiga oo dhan baa ula muuqda mid khatari ka soo guuxayso waxay la ahayd inay ku jirto riyo argagax leh axmed
intuu kursigii ku dangiigsaday ayuu sheekooyin guud oo yaryar isugu bedbedelayaa sidii nin albaab xiran marba fure ku tijaabinaya. uurkana waxa uu ka lahaa caawa waa inaan noqdaa jilaa xariif ah. iyaduna inkastoo ay ka durugtay haddana way ka warguraysaa, marba soo yara jaleecaysaa, markii indhihiisu ka hor yimaadaanna kasii jeesanaysaa ama hoos u gabanaysaa. waxay isku dayeysaa in uusan ka garan cabsida ay ka qabto iyo welwelka maskaxdeeda ku rafanaya, laakiinse ma ahayn wax qarsoomi kara. wuu ka gartay kuna dadaalayaa inuu ka saaro. fatuuradii kuusnayd weli xamar bay dhex mushaaxaysaa. way isu warlaayihiin tamashlaha ay la afdhuublaynayso iyo utunta ku taagan inanta uurkeeda dambe ku dhex jirta. markii hore dhowr jeer laablaabatay, kadibna afkeedii toosiyey markii ay wadada Generaal Daawud agta la heshay. waqooyi bay afka saartay. wadadu dheeraa, dhismayaashuna badanaa, wadooyinku waaweynaa, nadaafad badanaa, nalalka baxaya faraweyna, magaaladu ballaarana. Maanafay way yaabtay. waxaan oo dhan xamar leemiyaa mise afkooyihii la sheegi jiray baa la gaaray. dadku tiro badanaa, waxaan oo dhan xagee ka hoydaan, xagee saacadan u kala ordayaan ayaa ku soo dhacday. waa berisamaadkii Muqdisho sanadii 1980kii. iyadoo hagoogan bay marba isha hoos ugu xadaysaa. dadka wadada hareeraheeda isdaba maraya, dadka wajiyadooda ku dhici kari mayso inay hagaag u eegto. waxay ka baqaysaa in la aqoonsado oo lagu qayliyo, fartana lagu fiiqo, la iswada tuso oo lagu wada qoslo. qofka eegtaba waxay moodaysaa inuu kaligeed daawanayo, markaasay wejigeeda kala cararaysaa sidii ay deen ka qabto. caruurta yaacyaacaya markay aragto waxay ismoodsiinaysaa in ay iyada ka daba orinayaan oo ay ku leeyihiin hayaay waan ku sheegaa, hayaay waan ku sheegaa. dadka waaweyna waxay lahayd in ay ilxun ku soo eegayaan, afkana ka leeyihiin saan maa kuu dambaysay Maanafay, marle aan arko xaaji muumin iyo ay cadday. fatuuradii kuusnayd weli waqooyi bay usii afdhuublaynaysaa. dadkii way yaraadeen, dhismayaashiina way kala fogaadeen, baabuurtiina way kala go'een, nalalkii way kala durkeen. fatuuradii kuusnayd weli way socotaa. wuxuu ma waalatay, xagee bay ku socotaa? yaa u sheega in beledkii laga baxay. abooy beledkii waa laga baxay. maana way iscelin kari weyday, horey bay u ruqaansatay. waxaa ku soo dhacday in ay Sahra soo jeediso oo dhegta wax ugu sheegto, in ay weydiiso meesha baas ee loo socdo. gacantii ay ku taaban lahayd bay diyaarsatay. intaysan gaarsiin bay aragtay jidkii oo soo dhammaanaya. dib bay u yara hakatay. waxay istiri mar hadduu jidkii dhammaaday, danbaaba dib loogu noqon doonaa. taas alle ma aqbalin. fatuurada kuusani uma eka mid caawa dib u noqonaysa. waddo hor leh oo galbeed ka timi ayay beri ula weecatay. wixii hore beenbeen hadda duur cidlo ah oo mugdi ah ayaa madaxa lala galay. bixi maana waa amakaagtay. wadnaheedii orod waalan buu qabsaday. qabow sileen baa jirkeedii wada saaqay. afarta daan bay gowsaha iska shatay. xataa wixii ay Sahra dhegta ugu sheegi lahayd way kari weyday. afkii baa juuqda gabay. afka intay saarnayd waa markii ugu horeysay ee aragto duur bannaan oo aan nalal iyo daaro waaweyn midna loo jeedin. duur ha ahaadee waa goorma, waa habeen mugdi ah. dad yaa kala jooga. alla ha soo xasuusin. waa markii ugu horeysay ee ay raacdo baabuur aan tagsi ahayn oo ay saaran yihiin niman aan ehelkeeda ahayn. niman dadow oo ay u aragto in ay naag ahaan u wataan. amar baa ku dhacay. abaadirow soo ururinantaa. maana waxay noqotay sidii qof aan dabaal aqoon oo intuu wiish dhulka ka dafay ku dhex riday dooni badweynta ka kacsan oo iyaduna la baaxaadigaysa. aan garanayn meel loo wado, goor ay doonidu la jabi doonto ama xeebgeyn doonto. waxay soo xasuusatay sheekooyinka ay ka maqli jirtay hablaha ay isku fasalka yihiin. waxay uga sheekayn jireen baabuur lagu qaaday, wareeg laba la isu raacay, casho lagu marti qaaday, guryo dhalinyaro oo la tegay, baashaal macaan, ciyaar iyo qosol badan oo lagu caweynayo. Maanafay sheekooyinkaas dhageysigooda aad bay u xiisayn jirtay. weliba dhowr jeer ayay talooyin ku darsatay. jar ay saaxiibadeed rag ku shirqoolayeen oo ay kala tashadeen. hase yeeshee waxay laahayd in uu iyada gidaar weyni ka xigo ku kicidda falalkaas. waxay la yaabi jirtay indha adayga iyo dhiiranaanta ay hablahaas iyaga dheer yihiin. marar aan yarayn ayay qaarkood ka codsadeen in ay u raacdo meelo niman ku xasuumeen. iyaduse mar walba way diidi jirtay, iyadoo iska dhigaysa qof isdhowraysa ama waalidkeed ka cabsanaysa. run ahaanse kama ahayn isdhowrid
balse waxay ka ahayd ilnugeyl ay u dhalatay. waxaa ku adkayd in ay hal mar xargo goosato oo ayna u bareerto tijaabo ku cusub khatarna leh. habluhu markay arrimaha qaarkood uga sheekeeyaan waano iyo dhaliil bay u jeedin jirtay sidii qof waayeel ah. markay ku gacan seeraan ee weliba iyada yeesaan badownimo iyo miskiinnimada ku tilmaamaan way iska aamusi jirtay. markay kaligeed noqoto way isciilkaambin jirtay kana masayri jirtay gabdhaha ficeeda ah ee fariin la-aanta socda. horta ani maxaa faciga iga reebay, maxaa iga qadiyay shaqaansiga iyo baashaalka ayay isku canaanan jirtay, haddana isqaban jirtay ee hoos isu waanin jirtay. way jirtay in ay la saaxiibtay oo ballamo la dhigan jirtay laba wiil ay dugsiga isku barteen oo ay midba mar la saaxiibtay. waxayse ahayd muddo gaaban, iyaduna ma dhaafsanayn saaxiibtinimo iyo in lasla qosqoslo, meel fogna laysuma raaci jirin. waxay socotaba waa tanoo caawa way ku dhex jirtaa tijaabadii halista lahayd. iyadan ku talagelin bay moolka dalaq tiri jasiiradda ammaanka ahayd ee ay muddada ku noolayd bay habeen madow biyihii hareeye ee dusha sare uga baxeen. waa taas mawjadii sii sidata miskiintii maanafay, waa taas futuuradii kuusnayd mugdiga iyo cidlada la dhex muquufaysa. muddo lasii mushaax, mugdi lasii jibaax, maana laga sii yaabi, maaweelo lagu day, miro looga dhalin waa. mar dambay bidhaami muuqatay dhismo weyn oo nalal badan ay ka iifayaan ayaa mid ka soo baxay, mugdigiina kala xiray. maana way u riyaaqday iyadoon isogeyn bay su-aal ku booday, beledkan intaa waaye tii oo balcad la dhahayay miyaa? dadkii ay jawaabta ku sugaysay hal mar bay qosol ku wada dhufteen sidii iyagoo hore ugu ballansanaa. qosolkaasi maana riyaaqii soo galay buu ka saqiir suujiyey. su-aasheedii bay ka shalayday, waa wixii ay ka baqaysay in haddii ay wax sheegto lala yaabo oo lagu qoslo. waa sababtii ay caawo dhan la aamusnayd. arrintu siday mooday ma ahayn. su-aasheeda saaxiibadeed way u bogeen. waxay u furtay irid ay kasoo geliyaan kaftankii ay jeclaayeen inay kala qayb gasho. saddexdiiba isku mar bay si xiise leh u eegeen iyagoo weli qoslaya. cabdinaasir ba hadalkii kula hormaray oo yidhi isagoo u hadlaya kafteemeedkiisii baashaashnimadu ku dhiranayd, see waaye maana adiga caawa magaalooyinkii waa iskaga kaa khaldameen. tan balcad maahee beledweyne waaye. balcad lee maa la taagnaanaa. intii aan caawa oo dhan soo soconay sahraa raacisay sidii iyadoo dhammaystiraysa oraahdii saaxiibkeed. markii qosarkii la kordhiyey ayuu axmed yidhi, maya balcad iyo beledweyne midna maahee waa magaalo cusub oo hadda la dhisay, welina magac looma bixin. marka maadaama magaalada nasiib u yeelatay maana in ay noqoto qoftii ugu horeysay ee aragtay dadka kalena tustay, waxaan soo jeedinayaa in magaca magaaladan loo bixiyo uu noqdo maanafay. guddida sharafta leh ee caawa maxfalkan isugu yimidna waxaan ka codsanayaa inay ra'yigaas igu taageeraan, go-aanna ku gaaraan si aan jaraa'idka iyo idaacadaha ugu gudbino. ra'yigaas sacab baan ku aqbalaynaa, cabdinaasir baa yidhi. sababtuna waxa weeye magaaladani waa ka qurux badan tahay magaalooyinka kale. waad aragtaan nalalkeeda iyo fooqyadeeda muraayadaha ah. sidaa darteed waa in loogu magacdaraa gabadhii ugu qurux badan gabdhaha Soomaaliyeed. tee waaye taas? laakiin sahraa weydiisay iyadoo garanaysa jawaabta uu bixin doono. intuu shukaantii baabuurka hal gacan ku reebay cabdinaasir, tii kalena maanafay dhabanka uga taabtay, isagoo si xiise leh u jaleecaya ayuu yidhi, yaa kale maanafay maana cadday lee ahaa. yaa kula tartami kara joog iyo jamaal? ilaahay baa siistaye saas maaha oo maana. idinka in beledkan ii sheegtaan lee inay warsaday, bad kalaaba ila gasheen. maanafay oo dhoola cadaynaysa ayaa si farxad leh u tiri kadib markii walwalkii iyo walaacii hayay ku ilowday kaftankii iyo koolkoolintii afarta dhinac looga miisay. sahra oo doonaysa inay saaxiibtay sii dhiirigeliso ayaa markaas tiri, gabadha beenta hayga dhumanina, ii dhaafa saaxiibtay, anaa dhulka kala barayee. maana kaa run miyaa? meeshan ma garanaysid miyaa? warshadii baastada lee maaho. miyaa? maana ka daba tiri iyadoo warshadii oo lagu soo dhawaaday indhaha ku taagaysa. intii ay warshada daawanaysay ayay dareentay baabuurkii oo kor u leexday. wixii hore oo dhan bikh iyo bilaash. haddaa la gacan galay, laamigii laga beeray, luuq dhir dhexdhexaad ah la qarda jeexay, kanjiq ah la dhex galay. in yar kadib iftiin lama filaan ah ayaa mugdigii ka dhex bilaabay. waa iftiin yaroo casuus leh, nal iyo faynuus midna laguma sheegi karo. maana kud bay isku tiri, waxaan weligeed ma arag. waxaa ku soo dhacay cirfiidkii iyo waxyaalihii carruurnimadii lagu cabsi gelin jiray duurka inay joogaan, intuba ka dhaqsa leh.
meeshii bidhaamaysay waa la yimi waaba daar uu dad ka hor muuqdo sar gaaban oo 4 jihaba irda ku leh ayaa kayntii madoobeed ka dhex dhalatay horteeda dab qoryo waaweyn lagu shiday baa dhowr goobood ka qaxmaya hareeraha dhowr ay baa unuufaya hal unuunufkii ka agab waayeyna dabku ag fadhiya waxaad moodaa in uu dhaxanka kulaalayo mase dhaxamaysnee halkiisi u sugayaa agagaarka haddaad eegtid oo inta yar dabku ifinaya aad dhaaftid ishaadu waxay ku dhacaysaa dhir madow oo qofkii naftiisa jecel cabsi gelinaysa haddaad sii dhaafta macdinna udcur madow baaba ku soo gelaya markii cabdinaasir bireeg gacagta saaray fatuuradii kuusanayd istaagay ayay tirimaana iyadoo Sahra eegay codkeeda jiitamayana caloosheeda walaacsan ka turjumaya abaay inta maxaa waaye saaxiib waa jungalka cusub ayay Sahra ugu jawaabtay halkaas ay nagu joogto caawa sheekadu meel xasaasi ah weeyaan tani xalqada xigta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh